nin halka joogo oo la yiraahdo Hallis ayaa wuxuu iga sheekeeyay anigoo imtixaankii form 4 lagu diyaarinay magaalada Sheekh la yiraahdo Somaliland oo casar iska jiifa oo wax iga jiira baan u baahnayn oo xaaladaydu tahay xaalad aad u wanaagsan ayuu wuxuu ii soo diray sheeko iga yaabsay wuxuu yiri wiil iyo gabar baa xajkay isku barteen iyadoo xajka la joogo oo meel khayr badan soo ma deedana wiilkiiyo gabadhiiba waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan labada qofba waa laba qof oo mutadayiniina yani waa laba qof oo diintu ay hagayso oo aan ahayn dhalintii sabanka deetana markay sidaa ku heshiiyeen ayaa gabadhii wadnaha xanuun laga helay tana waxa la yiri qalliin bay gelaysaa gabadhii qalliin bay gashay qalliinkii bay ka soo kacday haddana qalliin kale gashay qalliinkii kale markay gashay xaaladeedii way fiicnaa weeyeen kolba xaaladeedu halkay marayso way la soo socodsiinaysaa waxa ay dad noqdeen laba qoys oo laba qof oo la isku yahay inay isguursanayaan labadoodii qoys bay isku yihiin sidii Soomaalidu oo jirta uu doonayo sidii dad isku doono tana gabadhii ba xaaladeedii ka yaabtay markay xaaladeedii ka yaabtay bay ninkii ka soo garaacday WhatsApp Messenger wixii way weydiin tana cod baa soo duubtay ay leedahay xaaladayda waan ka dayranayaa walaalay soo duceeyna saamax ninkii markuu taleefankii furo codkii gabadha arkay ayuu ku celiyay waa dhimatay adduunka ma joogto wuxuu ii soo diray hadalkii gabadhu lahayd kolkaan ninkan sheekada ku dhacday sida waa saaxiibo sheekadii markuu ii soo diray aan codkii gabadha dhageystay waxa igu noqotay wax sarka dhabana oo anigiiba gabigaygiiba ninkii sheekada ku dhacday muulkiisii iyo halkiisii baan doonay inaan isdhigo marka qofku waxyaabaha noocaasi ku dhacaan adigoo og in dadku dhimanayaan oo la wada dhimanayo qof waliba uu garanayo in la dhimanayo haddana naftu way didaa deetana way waclalaaftaa kolba gidaar bay u kacdaa waxaan doonay ninkaa aanaan is aqoon aanaan is arag maasow ka tiriyey buu isagu kolkaa ii soo diray maasada wuxuu bixiyey digrigii xubbiga anna waxaan doonay bal maasadaasi dee maasadiibaa way timi waayo shucuurtu qofka bini aadamkaa ee sugaanta sameeya shucuurtu waa halbowlay maasada waxaa la yidhaha dareenba dareen xambaar waxay ka hadlaysaa dareenkii Cabdiraxmaan Halbis ee maasadiisa uu ku tiriyey inuu anigana dareenkaygii u xambaaray oo dareenkiisii anigana dareenkan kale uu iga keenay deet waxaan isweydiiyey meel dhexda markaan maasada marayo haddii imika lagu dhahdo aakhira xagee ku taala haddii ilaahay waa access ku siiyo xitaa ogaan karto deetana si qofkan aad u samirsiiso waa inaad tusto bal intaan aakhiraba laga sheekayn kownkan aynu ku noolahay qofka bini aadamka intee buu ka gaari karaa universe-ka waxaan la yidhahdaa aynu ku noolahay kolkaa qofkii intaan gacanta qabto anoo isagii iska dhigayo codkiisii ku hadlaya ayaan doonayaa deetana inaan kownka dhex maro bal adiguba soo yani qofku si uu samro oo uu isku yidhaahdo dee laba caalam isma gudbi karaan deetana waxaan idhi dareenba dareen xambaar cod aan lagu diirsanayn dheg aan u diyaar ahayn duduuc ku gal oo dhex qaad anoo degan baan hordee anoo dagan maan filayn inaan dido oo kacee dalluunta jacaylka yaal codkuu ku dardaarmayaa halkuu durayaa bogsiin duruusuhu yaa badnaa duruufuhu keenayaan durbaan salal baa baxee
ميو سمير ديف ترى دريالنا way tagtay maxaa duniyay tartaa ninkii la hadlaya yani daryeel way tagtay maxaa duniyay qabanaysa markay isku daacadiin dadka isku diirnaxee markay isku duuban yiin miyaan lagu diirsanayn miyaan wadka soo dagaalamaana hadayna qoon dibaan asma loo arkay miyu codayaamayla inanta asma loo jiray yani markii de loo sheegay lagu yiri inantii way dhimatay macnaheedu de waxa weeyaan way dhimatay de implications bay leedahay ma arkaysid weeyaan dibaan asma loo arkay miyu codayaamayla daruuraha maan jeclayn baktiyay dabkaan shidee waxay dawadaydu taal dal aan cidi gaarahay inantii de waxay joogtaa dal aan la gaari karay kolkaa wuxuu leeyahay haddaan doondooni laa ma dawla maraan aqaan yani suu naftiisa u samirsiiyo haddaan doondooni laa ma dawla maraan aqaan haddaan isiraa dawaaf kun duud iyo meerayaal ilaysku ku daarayu dakaanka la tiicaya cagtaydana duubaysa haddaan isiraado dawaafo bal deba socda dee universeku sayntiisku ilaa in hooba yaqaanaan sayskiisu intuu leeyahay marka lagu idhaahdo xidigtay loogu dhowey waxay noo jirtaa 4.2 light years yani 4 sano iyo waxaasayna ilays ka soo soconayo ilayskuna aad ogtahay inuu ilbiriqsigii jaro 300,000 kilomitir bal meesha waxa ku soconaya xawaaraha 300,000 kilomitir oo 4 sanadood ka soo soconaya intee la kaanaysaa de balaadaba marka lagu idhaahdo ka waran waxa jirta meel uu ilaysku kaga imanayo 300 sanadood haddaan isiraa dawaaf ma dawla maraan aqaan haddaan isiraa dawaaf kun duud iyo meerayaal ilaysku ku daalayu dakaanka la tiicayay cagtaydani duubaysa deetana uu sheegay wuxuu dushaa sare waa cirjiir dhankaa bidix waa dusaa docdaa midig raagihii giraamuhu degarayeen faraaraan darisnahee haddaan kaa dayi lahaa xigtooy waa lama degaan dallaalimo kaa heshaan fallaadhaha iga dabray yani dushaa sare cirjiir jubiter baa cirjiir la yidhaha soomaaliya dad cirjiir maqasho oo meeraha jubiter la yidhaha dhankaa bidix waa dusaa haddaad dusaa soomaaliga maqasho waa meeraha mercury la yidhaahdo docdaa midig raagihii raagi waxa weeyaan waa sateen docdaa midig raagihii giraamuhu dayrayeen sateen waa ka ringis kale faraaraan darisnahay faraarana waa maaris af soomaaliga maaris baa faraaro lagu idhahdaa kan iminka la yidhaahdo habeenkii dhaweyn baalkii waa la tegay lalahaa faraaraan darisnahe haddaan kaa dayi lahaa xigtooy waa lama degaan dallaalnimo kaa ceshaa daruuraha fallaadhaha iga dabray yacni haddaan maaris kaa dayi lahaa dee waa meel radiationku siisa ugu soo dhacayo haddaan xidig durugsanaa hadduu xidig durugsanaa qalbigu raadcada u diro dabaysha khiyaaliga ay dagaalamayaa tagtaa cadceedda wax diirisaay mar uun igu deeq ilays darmaan ugu ii noqdoo xawaareeyo degdega miyaad se kal daacadoo naftaa hiro weydayoo dunuunuco aan jarayn damiir fahma leedahood naftaag daran kaalisa yacni markuu leeyahay cadceedda wax diirisaay mar uun igu deeq ilays waxaan isdhex gelinayaa sugaantii iyo da wixii aniga backgroundkayga lay baray oo xisaab iyo physics ahaa kolka haddii qofka bini aadamkaa lagu idhaahdo a beam of light ilay haddii dhud ilaysa raac lagu idhaahdo oo xawaarihii ilays ku soconaysa halkeebaad gaari kartaa cadceedda wax diirisaay mar uun igu deeq ilays darmaan ugubii noqdoo xawaareeyo degdega miyaad se kal daacadoo naftaa hiro weydayoo dunuunu caaf jarayn damiir fahma leedahood naftaa garan kaalisa yani de miyaad adigu ifahmsan kartaaba dee dadkaba qaar baa ku jira waxay ka duraadsadaan ka hela daayinka rabee haddaan weliyada digriga dibnaha aan ka qaadahayn duceeya idhaa talow miyay qof la duubayoo doraadku ay soo ceshaan bal haddaan u tagabo dadkan awliyada ilaahay oo qaarkood mustajaabu dacyaba yihiin miyay qof dhintay soo celin karaan intay alla baryaan iyagu iyaduna waa may wax alla waxaa su-aal la isweydiinay o dhami waa may deetana wuxuu yihi mar ruuxda la daadahshee malaa'igtu duulisaan intaa daba luudaya ma caalamka daahanaya i daawatay aan arkayn iftiinka ka daaran baan daboolka ka qaadayaa dareenka imaanulow
miyaad qadar daafacdaa digreeto rabbaani oo ku daabacan loox maxfuud miyuu durayaa racfaan awood ku dabaalaya waxa ilaahay qora miyaad racfaan ka qaadan kartaa iyaduna waa maya naxdinta igu diganaysa ay dadnimo maadaan lahayn didmadu mise waa anoo dibbaha igu dhacay islaam adoo naga diga rogtoo ka tagay dunidii shiddada degmooy qalbigaada weyd xuskii caashaqa ma dayn xasuustaadii ma demin xaqdhowrkaagii ma dumin danbaa ka hadhigu tidhee dudada ruuxdaadu aal taal dubaaqu hadduu yaqaan miyaan kaa daahilaa buuli yacni aakhirkii uu iska samraya halkaa waxaa caalamu markuu soo maro deetana wuxuu istusayaa in marka ugu dambaysa waxani uu yahay wax aan isaga awoodihiisii ka baxsan deetana waa inu dacan dhurta dib luqo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا السلام دمان قيار سدولنتين ميل كاستود كلا جوكتان درو إضافة هذا جنالك waa janalkeeni waa janalka ladan cabdo fadlan dhegeysta haddii ku cusub tahay janalka xurmay insha Allah like share comment subscribe waa xagaaga fikirkaaga waa muhiim qaybta dhiirigelinta ayaa inoo balana comment insha Allah bal kaalay maanta maxaan ku wadaa maxaase iga barateen oo iga barateen inaan soo gudbiyo محاضرين ayaan soo gudbin jiray sax iyo qisooyin hore channelkan aniga ugu soo gudbin jiray laakiin maanta sheekadan waxay dhaxmartay ninkan iyo naagtan dhageyso bal waxaad ka fahantay hal iyo labo commentiga igula wadaag run ahaantii waxaa kaaga bixi doona khibrad fikir yacni dhan walba ka fiir insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka bogan doontaan la wadaag hal iyo labo asxaabtaada insha Allah waad ku mahadsantahay Allah ka raali noqdo sida quruxda badan aad codsiyada u tixgelinaysaan insha Allah waxaan idinka tagayaa muuqaalkan muuqaalo kale la mid ah tan kulanta dambe wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum